وقصة حنون بدن nin kaani marka uu mushaarkiisa ka soo qaato xukuumadda waxa xanuunsada wiilkiisii ama baawurkiisii ayaa jaba ama telefishinka u yaala guriga ama alaabaha kale ayaa halaaba waa uu la yaabay waxana uu arkay lacagtii sida ay u badan tahay haddana dhibaatooyinka haysta waxa uu yimid sheekh degan xaafadda oo aad ay isugu dhow yihiin oo uu sheegay dhibaatada haysata waxa uu weydiiyey shaqadiisa sida ay tahay waa uu sheekeeyay sida uu shaqeeyo waxana uu tilmaamay in toddobaadkii hal mar uu tago shaqada uu saxiixo kadibna uu isaga tago lacag badanna uu ku qaato shaqadaasi sheekha ayaa waxa uu sheekeeyay xadiiskii rasuulka ee ahaa qofka in Allah uu jecel yahay marka uu shaqadiisii uu wanaajiyo sida laga dheehan karo shaqada wanaagsan in ay muhiim ay mar waliba ay tahay in qofka uu hagaajiyo waqul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون waxa uu uga sheekeynayaa sheekhan imaam shaafici nin ayaa u yimid oo dhahaya 5 dirham ayaan ku shaqeeyaa igumana filna shaqadeedii kuma qanacsanayo jiri imaamku waxa uu ku yiri ninka aad u shaqaysid ku laabo oo waxa dhahdaa 4 iiga dhig ninkii isagu su'aal weydiin ayuu isaga tagay waa uu ku soo laabtay isagoo u sheegaya in hadda xaaladiisu ay wanaagsanaatay oo 4 laga dhigay markale ayaa waxa la yiri ku laabo oo 3 dirham uga dhig markale ayuu laabtay sheekhi waxa wali u sheekeynayaa wiilkii dhibaatada haysatay ninkii kale imaam shaafici sheekadiisu waa ay socotaa waxa uu yiri hadda xaaladeeda sidii hore waa ay ka wanaagsan tahay waa uu la yaabay waxa uu yiri lacagteedii hoos ayay u soo dhacday haddana xaaladeedu waa ay wanaagsan tahay sidee ayay ku dhacday wadaadka ayaa waxa uu ku yiri waxaad shaqada aad qabanayso ay tahay mid u dhiganta 3 diinaar labada kale waxa ay ahaayeen kuwa ka badan lacagta aad ku shaqayso ninkii ayaa gartay dhibaatadii dhinaca shaqada ka haysatay waxa laga tusaalan qaadan karaa qisadan in ay muhiim ay tahay shaqo walba oo la qabanayo in ay waajib ay tahay sida lagu idmaday in aad u qabato oo allana uu ku jeedo sida shaqooyinkaasi aad u qabanayso ya ayyuhalladhina aamanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم daawade qisadan haddaad daawatay fadlan nala wadaag aragtidaada